عليكم ciidamada boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa hore u weerartay oo burburisay caasimadda dawladda Sacuudiga Diriyah iyo duleedka magaalada Riyaad. dhanka kale sanadkii 1818 boqor Cabdullah bin Sacuud oo ahaa boqorkii Sacuudiga ayaa qoorta lagaga jaray magaalada Istanbul. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa markii ugu horeysay burburisay boqortooyada Cusmaaniyiinta sanadkii 1818 markii labaadna waxay sanadkii 1871 isku dayay saddexaad Carabiya wuxuu noqday mid guuleysta markii ay taageertay Ingiriiska dagaalkii koobaad ee adduunka waxaana uu soo gashay in boqortooyada Cusmaaniyiinta ay weerarto. boqortooyada Cusmaaniyiinta ayaa sanadkii 1924 lagu soo koobay Turkigan casriga ah. waxaa la sheegay in madaxweynaha hadda talada haya Rajab Tayyip Erdogan uu dhiirigelin ka qaatay boqortooyadaas, balse hadda lama joogo xilliga Cusmaaniyiinta. Sacuudiga iyo Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay isku dayay inay boodhka ka jaraan xiriirkooda. Cabdullah bin Sacuud wuxuu ahaa taliyihii ugu dambeeyay ee dawladdii ugu horeysay ee Sacuudiga. waxaa lagu toogtay magaalada Istanbul oo markaas hoos imanaysay boqortooyada Cusmaaniyiinta. inkastoo ay Cusmaaniyiintu dhowr goobood ka haysteen Najd, haddana way awoodi waayeen inay ka hortagaan kicitaanka Imaaraadka Najd oo sidoo kale loo yaqaano dawladda labaad ee Sacuudiga oo hogaaminaya Turki bin Cabdullah. Cabdullaahi wuxuu ahaa curadkii Sacuud bin Cabdilcasiis oo ku dhawaaqay inuu yahay dhaxal sugaha sanadku markuu ahaa 1805. hogaamiyamadii ugu horeysay ee Cabdullaahi waxay ahayd sanadkii 1811. hogaamintiisii labaadna waxa uu la dagaalamay Masaarida sanadkii 1812 wuxuuna awoodi waayay inuu ka adkaado oo ugu dambeyn wuxuu dib u qabsaday Xijaaz. Cabdullaahi waxa uu xilka kala wareegay aabihii Sacuud bishii May ee sanadkii 1814. bilowga xukunkiisa Cabdullaahi waxa uu kala kulmay caqabado qoyska dhexdiisa oo kaga imanaya adeerkii Cabdullaahi bin Maxamed, laakiin waxa uu ku guuleystay inuu dejiyo dhibaatadaas. aabihii ayaa sanadkii 1813 bilaabay dagaal uu la galay boqortooyada Cusmaaniyiinta markii ay qabsadeen Xijaaz. guusha aabihiis awgeed Cabdullaahi waxa uu isla markiiba la kulmay duulaan ay ku qaadeen ciidamadii Cusmaaniyiinta iyo masaaridii ka amar qaadanaysay Ibraahim Paasha oo ah wiilka u dhalay Maxamed Cali. ciidamadii Cusmaaniyiinta Qaasimi Cabdullaahi waxa uu markaas ka fikiray sidii uu jabin lahaa boqortooyada Cusmaaniyiinta. waxa uuna go'aansaday inuu xoojiyo ciidamadiisa jooga magaalooyinka Najd sanadkii 1816. taasina waxay keentay in Ibraahim uu mid u qabsado tuulooyinka Najd isagoo ka eriyay magaalo kastoo kor timaada. Ibraahim ugu dambeyn wuxuu gaaray caasimadda Sacuudiga ee Diriyah kadib go'doomin qaadatay dhowr bilood. Cabdullaahi ayaa ugu dambeyn isdhiibay 9 Sebtembar ee sanadkii 1818 taas oo calaamad u ahayd dhammaadka dawladda Sacuudiga. Ibraahim si nidaamsan ayuu Diriyah dhulka ula simay, wuxuuna u diray xubno badan oo ka tirsan qabiilka Sacuudi oo maxaabiis ahaan loogu xidhay Masar iyo Istanbul oo ay markaas ka talinayeen boqortooyadii Cusmaaniyiinta. 3 ka mid ah Cabdullaahi walaalihiis iyo 18 xubnood oo ka tirsan qoyska Al-Sacuudi ayaa la dilay. 18 wiil oo u dhalay iyo 2 ka mid ah taageerayaashiisana waxaa la keenay Qaahira bishii Noofambar ee sanadkii 1818. kadib 6 bilood oo uu joogay Qaahira, Cabdullaahi waxa loo wareejiyay Istanbul halkaas oo isaga iyo labadiisa taageere si caad loogu gowracay. bishii May ee sanadkii 1819 iyagoo jaasinayay dembiyadii la sheegay inay ka galeen magaalooyinka barakaysan iyo masjidka. halka Usugli Alta tan ayaa ku doodaya in Cabdullaahi afartiisa wiil qoorta laga gooyay ka hor intaan la dilin. Cabdullah oo mamnuucay dhegeysiga muusikada ayaa lagu qasbay inuu dhegeysto luubta. sanadkii 1801 goobtii uu ku aasnaa Imaam Xuseen waxaa jabiyay ciidankii Cabdullaahi bin Sacuud, taasoo cadho iyo naxdin ku abuurtay dhammaan dunida muslimiinta. taasna waxay keentay in maamulkii Cusmaaniyiinta ay la kulmaan xaalad ay ku qasban yihiin inay Sacuudiga ku ciqaabaan dembiyada ay galeen. khaliifkii Turkiga iyo Cusmaaniyiintii ku sugnaa Istanbul, Maxamed oo markaasi ahaa ilaaliyaha goobaha diinta Islaamka, ayaa amray in ciidan Masaari ah loo diro jasiiradda Carabta si ay ugu adkaadaan Cabdullaahi bin Sacuud iyo xulufadiisa. sanadkii 1818 ciidankii Masaariga oo hogaaminayay Ibraahim Paasha ayaa gebi ahaanba burburiyay ciidankii Cabdullah waxayna qabsadeen caasimadda Diriyah ee Najd. liiska iyo kala horreynta boqortooyadii Sacuudiga kadib burburkii Cusmaaniyiinta.